الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد waxaynu tusin doonaa iyaga calaamooyinka yaga ee ka muuqda koonka iyo nafahoodaba jeer ay u naqato caddaan in quraankani uu yahay xaq ma wuusan ku filnayn rabbigaaga muxammadow sallallahu calayhi wasallam inuu isaga yahay markhaati wax waliba alla weyne subxaanahu wa tacaala wuxuu quraanka kariimka ah u soo dejiyey basharka si uu ugu hago ama ugu toosiyo waddada toosan alle subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay ciddii raacdaa kitaabkaasi inay ka heli doonto nabad iyo farxad adduun iyo aakhiraba isla markaana uu quraanka noqon doono fariintii ugu dambaysay ee ka timaada dhanka alle markaana baaqi ku ahaan doonta dunida ilaa iyo maalinta ugu dambaysa ee qiyaamaha asluubta uu quraanka kariimka ah u qoran yahay waxaa ka mid ah inaad ka hesho xikmado aad u sareeya iyo qisooyin hore middaasi oo aad ku garan karto in quraanka uu yahay hadalkii alla weyne sidaasi oo kale quraanka waxaa ku soo arooray cilmi badan oo ay ka faa'iidaysan waayeen dadka muslimiinta ah badankood cilmigaasi oo muslimiinta laga jiheeyey ama laga leexiyey cilmiga quraanka ku qoran markaad aqrisana waxaad ogaanaysaa in uu ka sareeyo basharka oo dhan iyo waxay alifeen qarnigii 20aad waxaa la dahfuray xaqiiqooyin cilmi ah kuwaasi oo heerkooda uu aad u sareeyo midkaasi oo ibni aadamka ay gaareen laakiin cilmigaasi iyo horumarkaasi waxa uu ku qornaa kitaabka alla weyne ee uu soo dejiyey 1400 oo sano ka hor quraanka ma ahan kitaab u gaar ah cilmiga koonka loogu dhaqmo laakiin waxaa ku jira xaqiiqooyin dhanka cilmiga ah oo ku soo arooray aayado badan oo quraanka kariimka ka mid ah laakiin aan la fahmin badankooda xilligii uu quraanka soo degayey waxaa laga yaabaa in basharka alla abuuray aysan weli ku baraarugsanayn cilmiga iyo ogaalkiisa waa alla weyne iyo fariinta uu u soo diray iyaga si ay u fahmaan alle waa kan abuuray koonkan ee u dejiyey qawaaniinta loogu dhaqmo waana eebbihii soo dejiyey kitaabkani si uu inoo tuso inuu yahay hadalkii alla weyne qasab ama sandulana ay ku tahay inay fahmaan abuurkiisa haddaba waxaa ka mid ah jahligii hayay dadkii hore iyo sidii ay u fikiri jireen ayagoo ictiqaadsanaa in samaawaadka sare ay kor u hayaan buuro aad u dhaadheer oo dunida daafaheeda ku yaal waxay sidaasi oo kale rumaysnaayeen in dhulka uu fidsan yahay oo daafaha ugu dambeeya dhulka ay ku yaalaan buuro dhaadheer oo tirar la moodo samadana kor u bilaya ama kor u haya si ay ugu soo dumin dadka iyo dunyadaba laakiin kolkii uu quraanka kariimka ah soo degay waxaa meesha ka baxday khuraafaadkii iyo baadilkii ay meesha ku hayeen kadib markii loo caddeeyey in samaawaadka aysan lahayn wax tirar ah ama aysan buuro kor u bilayn samada sare alla weyne wuxuu yidhi allahu aladii rafaca asamaawaati bigayri camadin tarawnaha alle waa isaga kan kor u qaaday cirarka tirar la'aanta ah oo aad arki kartaan aayaddaasi waxay baadil ka dhigtay waxay dadkaasi isugu sheekayn jireen waxayna u caddaysay in samaawaadka aysan lahayn wax tirar ah oo kor u haya sidaasi oo kale waxaa jira cilmi uusan fahmi karayn qofkii xilligaasi jahliga ah noolaa laakiin kolkii uu quraanka soo degay wuxuu uu saxay dhammaan qaladaadkii jiray dhanka kale alla weyne wuxuu addoommadiisa u sheegay haddii uu doono in cirka gobol ama cad ka mid ah uu ku soo dumin karo ama uu dhulka la jari karo haddii uu doono wuxuuna alla weyne leeyahay أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض
إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ma waysan arag waxa hortooda ah iyo gadaashooda ah oo cirka iyo dhulka ah. haddii aan doonno waxaan la goyn doonnaa dhulka iyaga ama sababi karnaa in gobol cirka ah inuu ku soo kordhaco. qur'aanka wuxuu tilmaamay abuurka koonkan iyo xitaa abuurka insaanka iyo cilmiga hawada sare. haddaba si aan u soo bandhigno cilmiyadaasi qaarkood waxaan rogrogi doonnaa kitaabka Alla weyne subxaanahu wa tacaala. waxaa halkani ah arrin la yaab leh oo aad ku arkayso qur'aanka kariimka ah. waxaad arkaysaa dayaxa iyo qoraxda in loo sameeyey waddo ay ku socdaan oo xadidan. wuxuuna Alla weyne subxaanahu wa tacaala yidhi: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. waana isaga alle kan abuuray habeenka iyo maalinta iyo qoraxda iyo dayaxa, mid waliba garaangar buu ku dabaalanayaa. aayad kale wuxuu Alla weyne subxaanahu wa tacaala inoo caddaynayaa in cadceedda ama qoraxda aysan meel ku sugnayn, yacnii ay socoto isla markaana la xadiday socodkeeda. wuxuuna yidhi caza sha'nuh: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. qoraxdu waxay ku orodaa jidkeeda cayiman, yacnii muddo go'an. sidaasi waa qadarka awood badanaha cilmiga badan. xaqiiqooyinkaasi lagu sheegay qur-aanka gudihii waxaa la ogaaday casrigan aynu nool nahay hadda, midkaasi oo horumar badan laga gaaray cilmigaasi. waxaa iswaafaqay xisaabaadkooda iyo cilmiga qur-aanka ku jira, taasi oo ah in qoraxdu ay ku socoto xawaaro dhan 720,000 oo kiiloomitir saacaddiiba ay jarto, waxayna cadceedda kolkaasi ku sii socotaa dhanka xidigta lagu magacaabo diigga. sidaasi oo kale qoraxdu waxay maalin walba jartaa 17,280,000 oo kiiloomitir maalintiiba. dhanka kalena xidigaha waxay u dhaqdhaqaaqaan ama ay jaraan xawaaro ku dhow midda qoraxda oo kale. wuxuu Alla weyne aayad qur'aan ah inoogu sheegayaa: والسماء ذات الحبك. waa igu cirka waddooyinka badan. haddaba waxaa cad in xilligii hore aysan dadka haysan tiriskoobaadka hadda jira ee waxyaabaha fog lagu arki karo, kuwaasi oo maanta dadka u sahlay inay ogaadaan awoodda Alle iyo cilmigiisa. inkastoo ay iska dhigayaan saynisyahanada dad iyaga helay cilmigaasi, haddana badankooda ay xaqiijiyeen in qur-aanka uu yahay kalaamka Alle. haddaba sidee ayaysan ku rumaysanayn qur-aanka kariimka inuu yahay hadalka Alla weyne caza wajalla? waxaa la sameeyey baaritaanno dheer qarnigii tegey, kuwaasi oo ku aadanaa dhanka badaha. waxaa soo shacbaxday amar aad u weyn oo ku qoran qur'aanka kariimka ah, gaar ahaan suuradda arraxmaan. Alla weyne wuxuu leeyahay: مرج البحرين يلتقيان. waa uu sii daayey Alle labada badood, biyaha dhanaanka ah ee badda iyo biyaha macaanka ah ee webiga, ayagoo wada kulmaya. بينهما برزخ لا يبغيان. dhexdooda waxaa ah xanib aysan middoodna u dhaafi karin midda kale. taasi oo macnaheedu tahay muuqaalka guud ee labada biyood waxaad arkaysaa in labadaasi biyo ay isku furan yihiin, haddana aysan marnaba isku xadgudbayn. xaqiiqdani dhanka cilmiga ah waxaa la dahfuray inta aysan ogaanin culimmada lagu magacaabo oceanographic, maxaa yeelay markaad isku daydo inaad dhadhamiso labada biyo waxaad dareemaysaa in labada biyo aysan marnaba isku xadgudbayn oo mid walibaa dhadhankeeda iyo macaankeeda u gaar yahay. sidaasi oo kale xayawaanaadka ku nool labadaasi biyo ma ahan kuwa u gudba dhanka kale. haddiise ay dhacdo, ma dhacdo inta badan
waa kuwa ku xadgudbay awaamiirta alla weyne sida ay aadanaha ugu xadgudbaan xuduudda uu alla weyne u dhigay. haddaba arrintani ku aadan badaha waa arrin mucjiso ah oo alla weyne oo keliya uu awoodo, mana ahan arrin uu samayn karo kuwa isku sheegay oo shonografik. nimcadaasina Soomaalida alla weyne wuu ugu deeqay inkastoo aysan ka faa'iidaysan badankood. inaad ogaato quraanka inuu yahay xaqiiqo ahaan mucjiso wuxuu alla weyne subxaanahu wa tacaala horay u sii sheegay isaga oo ka warqaba waxa dhici doona iyo wixii horay u dhacayba. tusaale haddaan u soo qaadanno warkii mustaqbalka ku saabsanaa ee looga hadlay ayadaha koowaad ee suuradda ruum. غلبت الروم roomankii waa looga adkaaday dagaalka oo lagu jebiyey. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون dhulkii dhowaa waa suuriya, ciraaq, urdun iyo falastiin. ayaga roomanka ah jabkooda kadib waa ay ka adkaan doonaan oo waa ay qabsan doonaan. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون 3 ilaa iyo 9 sano gudahood go'aanka amarkaasi waxaa leh Allah ka hor iyo kadibba, yacni ka hor jebintii roomanka la jebiyey oo ay jebiyeen farisiyiinta iyo jebinta laga adkaan doono farisiyiinta oo ay jebin doonaan roomanka. maalintaasi mu'miniinta yacni muslimiinta waxay ku farxi doonaan guusha uu alla weyne siin doono roomanka ee ahlu kitaabka ah ay ka guulaysan doonaan majuusiyiinta dabcaabudka ahayd. wuxuu alla caddeeyey in boqortooyadii roomanka jab weyn loo geystay, laakiin alla weyne wuxuu sii sheegay in guul lama ilaabaan ah ay gaari doonaan dhowaan. aayadahaasi waxay soo degeen 620kii xilligii miilaadiga ay ku beegnayd, markii jab weyn loo geystay roomanka ayna u geysteen majuusiyiinta dabcaabudka ah ee farisiyiinta. aayadahani waxay sii sheegeen in roomanka guul degdeg ah ay gaari doonaan kana gaari doonaan farisiyiinta dabcaabudka ah. arrintaasina waxay u dhacday sida uu alle horay u sii sheegay, waxaana jab weyn iyo halaag loo geystay farisiyiintii ayagoo laga keenay kabtay ma aragteen, waxaana la tirtiray jiritaankoodii iyo awooddoodii dhan. laakiinse cabsida farisiyiinta oo keliya ma saamayn, waxaa cabsi xooggan ay gashay waddamada dariska la ahaa bershiya sida afaris iyo kuwa jarmalka iyo wixii laisku odhan jiray islaafis oo ruushka u weynaa. haddaba jabkii gaaray markii hore roomanka waxaa aad ugu farxay mushrikiintii carbeed, kuwaasi oo doonayay in farisiyiinta dabcaabudka ah ay guulaystaan, maxaa yeelay roomanka waxay ahaayeen masiixiyiin rumaysan waxdaaniyadda alle. kolkii aayadahani ay ku soo degeen nebi moxamed naxariis nabadgelya dushiisa ha haatee, mushrikiintii carbeed waxay u qaateen wax dheeldheel iyo mala ah. laakiin 10 sano gudahood ayuu waaga ku baryey. dhab ahaantii sannadkii 624 miilaadigii kolkii ay ku beegnayd, roomanka waxay qabsadeen dhulkii bershiyiinta yacni farisiyiinta ay haysteen. isla sannadkaasi ciidan yar oo muslimiinta ah oo uu hoggaaminayay nebi moxamed naxariis nabadgelya dushiisa ha ahaatee ayaa ka adkaaday mushrikiintii carbeed dagaalkii badar.